عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكني و EBC News Now دوليال كسر هذا برنامج كيني وركا عالم وركا وحقركا لوجو ساري هاي إن مركزي ودجال نهبره دلكا إيران إيو دلكا أمريكا إيو حلفديسا مركزي أيام مركزي وحاول صدري مركب كله أو مركزي السجوا مركبتا حنبارة ديارها دجالها مركزي تقية ملاف فوق كتقية waxaa soo gaaray bariga dhexe oo markaas ku soo biiray maraakiibtii hore dagaalka ee halka goobtaasi joogay markabka loo yaqaano Lincoln Carrier kaasoo ah markaasi markab qaada diyaaradaha dagaalka ah kuwa waaweyn ee Mareykanka uu leeyahay ayaa uu ka mid yahay haddaba xaaladda ayaa cirka isku shareersan waxaa laga baqayaa in markaasi Mareykanka iyo xulfadiisu ay weerar ku qaadaan dalka Iiraan gudaheeda weli waxa ay wadaa xirxirinta dadka mudaharadayaasha ah iyo caburinta iyo laynta dadka mudaharadayaasha ah ee halkaasi rabshadaha ka wada waxa cirka isku shareeray Iiraan gudaheeda maciishada ayaa samada isku shareertay dadku waxay ka cabanayaan xaaladda dhaqaale ee markaasi ay Iiraan soo wajahday mudaharaadka ayaa isaguna sii kordhay magaalo kasta mudaharadadu waa ay gaadheen dhinaca kale wadamada caalamka ayagu markaasi arrimahan ka soo horjeeda waxaa ka mid ah waddanka Faransiiska oo iyagu diidan in markaasi dagaal lagu qaado isla markaana waxay diideen inay xiriirka u jiraan dalka Iiraan maadaama aan ilaa hadda ay waxa uu sheegay in madaxweynaha dalka Faransiiska waxa uu sheegay in muhiim tahay in xiriirka la sii wado oo markaasi nabad arrinta lagu dayo dhinaca kale waxa iyagu dhammaan xiriirka u wada jiray wadamo kale oo fara badan oo markaasi ka tirsan iyagu dhinaca reer galbeedka waddanka Qatar isaga qudhiisu ayaa iyaguna waxa ay aad iyo aad ugu walacsan yihiin in halkaasi uu dagaalkaasi ka qarxo maadaama iyaga ku dhow uu saameyn weyn ku yeelanayo maadaama ay degan yihiin badda marinka Hormuz maadaama Qatar ay ku taalo marinka Hormuz isla markaana ay aad isugu dhow yihiin dalka Iiraan dhinaca kale madaxweyne Donald Trump ayaa maalmood waxa uu sheegay in Iiraan ay doonayso inay deal ay gasho balse waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ay joojiyaan in dadka ay laayaan ama dadka ay ka hortagaan mudaharadaya ama ay xirxiraan sidoo kale waxaa hadlay isagana xildhibaan ka tirsan aqalka golaha sanadka ee loo yaqaano Ted Cruz kaasoo markaasi sheegay in loo baahan yahay in la hubeeyo dadka mudaharadayaasha ah ee shacabka ah si markaasi ay u tuuraan kursiga ay uga tuuraan kursiga Ayatollah Khomeini ee markaasi xukunka haysta taasina waxa uu ku sameeyay in ay muhiim tahay in laga tuuro maadaama